kulanti waxaan saaxiibayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay waxaan eegi doonaa isbedelka lagu sameeyay tartanka championka qaabkee loo ciyaari doonaa sanadka soo socda ma jiri doono wax la yiraahdo group stage 16 kooxood oo laga dhigay tartanka nag awdee la ciyaari doono qaabkee loo aadi doonaa wareegga 16 iyadoo la soo ciyaarin group stage Barcelona oo kusoo biirtay kooxaha doonaya Greenwood kooxii Osimhen doonayay oo faraxsan isku aadka dhici kara wareegga 16 ee championka aynu xagga dambe ka warami doonaa hadii tahay markii ugu horeysay soo booqato fadlan rukumo kambalelkana furo saad uga mid noqoto dadka ugu horeeya ee warbixinta ay soo gaadho mar labaad soo dhawaad saaxiibayaal hadii ku bilowno runtii isbedelka lagu sameeyay tartanka championka qaab loo ciyaari doono sanadka soo socda runtii xalay waxayd wareegii lixaad ee group stage-ka ugu dambeeyay runtii waa la kala baxay kooxoyn fara badan ayaa soo baxay runtii xaqiiqatan waxa ahna in group stage-ka xal la ciyaari uu yahay group stage-kii ugu dambeeyay ee tartanka championka la ciyaari doono sidaas ay ku macaslaameena waxa la yiraahdo group stage xalay baan ugu dambeysay kooxii ciyaariyay runtii isbedelo waaweyn oo lagu sameeyay tartanka championka ayaa jira oo loo ciyaari doono sanadka soo socda laga bilaabo xilli ciyaareedka soo socda Champions League waxa uu noqon doonaa amaba loo ciyaari doonaa qaab cusub oo aan hore looga ciyaarin oo noqon doonta sanadkii koobaad 16 kooxood ayaa laga dhigi doonaa kooxaha ka soo qayb gala tartanka championka runtii group stage lama ciyaari doono 16 kaasi kooxood ba waxay ciyaari doonaan qaab cusub oo lagu soo kordhiyay tartanka championka 16 kooxood ba laga dhigay runtii koox kasta waxay ciyaari doontaa 8 kulan 8 kooxood oo kala duwan ay la ciyaari doontaa runtii waxa jiri doonta 8 kooxood oo ugu sareyn doona horyaalkan oo runtii qaabkii aan u naqaanay laga bedelay runtii 8daasi ugu sareeya waxay si toos ah ay ugu soo bixi doonaan wareegga 16 8daasi si toos ah ay ugu soo bixeen wareegga 16 hadda waxa imaanaya kooxaha galay kaalmaha 9aad ilaa 14aad kooxahaas waxay oo ah 16 kooxood iyagu knock out ay gali doonaan play-off ay soo ciyaari doonaan 16 kaasi kooxood 8 kooxood ee soo guuleystana iyaguna waxay hore uga iman doonaan 8dii hore ee sifadii oo lagu day 8 waa 16 markaasi wareegga 16 kaasi kooxood ayaa loo qori doonaa oo ciyaari doona waana qaab cusub oo loo ciyaari doono tartanka championka runtii sanadka soo socda ayaa laga bilaabi doonaa si tahay xaqiiqadu runtii xalay kulmadii group stage-kana waxay noqon doonaan group stage-kii ugu dambeeyay ee tartanka championka sidaasi aynu ku macasalaaminay waxa la yiraahdo group stage qaabkan cusub ayaa loo ciyaari doonaa championka soo socda ee sanadkan soo aadanba haddii aynu dhankaasi wararka suuqa waxa jira kooxda AC Milan ayaa waxay doonaysaa in Yusuf An-Nasser ay kala soo wareegto kooxda Sevilla laacibkan reer Morocco ayaa runtii waxa ka xiiseynaysa Milan ayaa kooxda Sevilla ka xiiseynaysa runtii qandaraaskiisa waxa uu eegayaa si dhamaanayo kooxda Milan ayaa laacibka soo doontay oo doonaysa in safkeeda ay ku xoojiso waxa jira hadaba Napoli ayaa waxay wada hadallo heshiis kordhin ah ay runtii ay la gashay laacibkeeda Victor Osimhen oo jiraan kooxoyin fara badan oo laacibkaasi ka xiiseynaya kooxda Napoli Osimhen ayaa runtii waxa uu ogolaaday inuu saxo qandaraas soconaya ilaa ay sanadka 2026 waa wararka ilaa hadda la soo qorayo laakiin waxa heshiiska runtii lagu daray waana qodobka ay ku faraxsan yihiin kooxaha xiiseynaya laacibkan inay soo qaataan ama ay soo iibsadaan in lagu iibsan karo 115 milyan oo gini kooxay la timaada ay qaadan doonto lagu burburin karayo qandaraaska la galay kooxdaasi waxay arintani saan sheegnay ay farxad u tahay kooxay doonayay dhaliyahan oo runtii kaliya u baahan inay bixiyaan lacagtaasi si ay ula wareegaan laacibkani lacagtaasi lagu burburin ee 115 kan bixiyaan bay baahan si laacibkan ay u qaataan waana ogolaaday laacibkan dhawaan baana qaranka lagu doogi doonaa sida warar hoose ay soo diseen laacibkan ilaa 2026 uu saxiixay doono kooxiisa waxaana jiri doona si leeyahay sanad gacanta ugu jiri doona laacibkan oo uu si kordhin karo kooxiisa Napoli laakiin waxaba la filayaa oo ka awood weyn in la iibsan karo laacibkan oo uu ka bixi karo waa 115 milyan ayaa qandaraaskiisa lagu burburin karaa waxaan runtii ku jiri doona waxaan uu noqon doonaa heshiiskiisaasi uu ka dhigi doona laacibkan inuu noqdo laacibinta ugu mushaar kordhin ayaa loo sameyn doonaa wariyahanka Nigerianka ayaa wuxuu noqon doonaa mid ka mid ah
ciyaartoyda ugu mushaharka badan taariikhda kooxda Napoli ee soo marta. heshiis runtii aan caadi ahayn, mushahar aan caadi ahayn ayaana laacibkani la siin doonaa. waana sababaha keenay in uu ogolaado in 2026 laacibkan uu sii joogo kooxdiisa Napoli. 115 milyan heshiis lagu kordhin karo haddii koox ay soo dalbato ay doonayso in ay kala wareegto kooxdiisa Napoli. Barcelona iyo kooxaha kale ugu waaweyn qaaradda Yurub ayaa waxay ku raad joogaan 22 jirka weeraryahanka ee u ciyaara kooxda Manchester United waa Mason Greenwood, kaasi oo ama hal sano ugu ciyaara kooxda Getafe ee horyaalka Spanish La Liga. runtii Manchester United xilli ciyaareedkeedu waa diiday in laacibkeedu uu ciyaaro kadib kufsigii muddo dheer soo jiitamay oo ciyaaraha ka maqnaa laacibkani. weli waxaa leeyahay Manchester United ma rabto inay soo ceshato, waxay doonaysaa haddana ama ay ku dirto kooxaha ugu waaweyn ee kusoo biiray qaaradda Yurub. kooxaha ugu waaweyn baa doonaya kadib qaab ciyaareedku laacibkan uu kusoo bandhigay Getafe xilli ciyaareedkani. Barcelona ayaana ka mid ah kooxaha aad ka xiiseynaya in laacibkani ay qaadato oo runtii ay safkeeda ay ku darsato oo laacibkan weliba heshiis amaah ayaa lagu qaadan karayaa. haddii iibu soo baxana in laacibka la iibsan karo waa macquul, waayo kooxdii Manchester United ahayd ma rabto laacibkeeda yar in safkeeda ay kusii haysho. kooxa waaweyn ayaa laacibkan ka xiiseynaya oo doonaya xaqiiqatan in safkooda ay kusoo daraan si weeraryahankan ay u qaataan oo ay ugu xoojistaan. Getafe xaqiiqatan waxyaabo badan ayuu ka caawiyay xilli ciyaareedkan intuu joogay. runtii kooxooyin fara badan ayaa jiray oo laacibkan daawanayay oo kulamada dhan imanayay si laacibkan ay u siin dheendheyaasha. kooxo fara badan ayaa la arkayay oo daawanaya laacibkan. haddaba haddii eegno xalay waxaa siin hore usoo sheegnay group stage-kii ugu dambeeyay waxaa jiray kooxo baxay. waxaan eegi doonaa qaabka ay isugu dhici karaan kooxaha waaweyn iyo kulamada waaweyn aan ku arki karno wareegga 16 ee tartankan championka ee sanadkani. haddaba kooxooyin fara badan qaar hore u baxay iyo qaar hadda baxayba runtii waxaa jira kulamo waaweyn. PSG iyadoo kaalinta labaad bay ku baxday. waxay ku dhici kartaa kooxo waaweyn ay ka mid yihiin Barcelona, Manchester City, Atletico Madrid, Real Madrid, Arsenal, Bayern. soo kale Napoli iyadana waxay ku dhici kartaa saasoo kale Barcelona iyo Dortmund iyo Bayern ay ku dhici kartaa in kulankaasi weyn kala aragna ayaa macquula. Inter iyo laftigeedu waxay ku dhici kartaa kooxo waaweyn oo Real Madrid ka mid ah oo Bayern ka mid ah, Barcelona ka mid ah, Arsenal ka mid ah ayaa runtii isku dhici kara. Porto la mid iyadoo kooxaha waaweyn bay ku dhici kartaa laftigeedu. waa kulamada waaweyn arki karno tartanka wareegga 16 ee sanadkan championka ayaan arki karno. runtii Manchester City iyo Real Madrid ayaa sanadkan taariikh ka dhigay wax gool daraalamay kulmin 18 dhibcood ay labadaasi kooxoodba Real Madrid iyo Manchester City ba ay kaga baxeen wareegga 16. waa labada kooxood leeyahay ma qaadi karaan. Real Madrid sanadkan ma qaadi kartaa, Manchester City laftigeeda ma labaysan kartaa, inkastoo sanadkan sidii sanadkii hore aan awood weyneyn sidii sanadkii hore ay ahayd. xaqiiqatan waxaa leeyahay ma ku ceshan kartaa sanadkanna ma qaadi kartaa. wararkeena ciyaaruhu waa naga taas saaxiibayaal, intaynu kulmi doono wararkeena kale. wassalaamu calaykum.